siyaasi jaamac Shabeel oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland kana mid ahaan jiray xisbil xaakinka talada haya ee kulmiye oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu dhaliilay isbarkan u jeediyay gudida tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland taasoo sheegay inay daacad ka noqdaan qabashada shahaadooyinka musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee la filayo in dhawaan guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qabsoonto siyaasigu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri shuruudaha lagu soo rogay ee u muhiimsanayd jaamacadu qofka jaamacad soo baxay waxa muuqatay in dhaliil ka soo baxeen habka hawsha loo maamulayo inkastoo tahay markii u horeysay shuruud badda la isku xidhan noocana haddana waxaan ku boorinayaa qolada tacliinta dhaliilaha ka soo baxay dhaliilaha awda dhaliilaha daboola qolada kumishkila waxa la screening tabiidi ku idin yaala tasiidaysana waxa uu deewa biico dhaashay hada sharciga dadka u sintaan oo loo silmo sharcigana waa horumar soo kordhisay idinku kale imtixaankaas ku jirtaa imtixaankaas wuxuu ka turjumayaa doorashada sida maamuli doontaan idinka badan galay idinka shahaadahan wasaaradda u diray idinka tarbalka inta laga buuray maamulkiisa baa la idinka rabaa waayo waxa reflection waxay bixinaysaa sawirka aad berrito doorashada saa maamuleysaan waa imtixaan idin hor yaala waa qolada komishinka ogtaas sida hawsha maamushaan iminka ayuunbuu sawirka noqon doonaa maamulka doorashaduna dadka aad isu diiwaangeliyeyna gobolka weliba muradjeex aad iyo aad bay u fara badan yihiin qorshayaashii hore wixii ma shaqaynayaan way labalaabmeen dadku waa tijaabada waa laydinku tijaabinaya haddii kale dhaliilaha ka soo baxay xagga waxbarashada geesta kale siyaasi jaamac Shabeel waxa uu ka hadlay warukaca qiimaha shidaalka oo muddooyinka ugu dambeeyay laga dareemayo gudaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu fariin adag u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana hadaladiisii kamid ahaa shidaalka waxa ku xidhan shay kasta ama maciishada oo dhan ba ku xidhan gaariga caanaha soo qaadaya gaariga dikid wax soo xamaalaya ka khudradda soo qaadaya beeraha maciishadii noloshii oo dhan baa ku xidhan shidaalku waa waxa keliya ee dawladuhu ay ilaaliyaan qiimihiisa inaanu kicin madaxweynaha waxaynu maqlaynay sidii uu qof caadi oo martiya yahay ayuu uga hadlayay kii xil ka saaraa uu ahayn shidaalka iyo ilaalintiisa biyo dhaan baa lagu jiraa buuri waxaan ka codsanayaa codsi lagama baahna madaxweyne codsi lagama baahna awar baa lagaaga fadhiyaa maamul baa lagaaga fadhiyaa manajul baa lagaaga fadhiyaa waxaan codsanayaa lagagama fadhiyo iska hayso codsigaaga cidina kaa dhegeysa mascidina ku falmayso dalkan adaa ka madaxa maamulkiisa adaa lagaa rabaa shidaalka wax ka qabashadiisuna aday dusha kuu saaranta sida islaamaha oo dhan waxa soo jeedinaya iyo sida shicibka u hadlira noloshii oo dhan baa kacaysa qofka shaqaalaha mushaharka qaata markii noloshaas ku wada kacdo suu u noolaanayso maad ka fikirayn intaa askariga nabadgelyada ilaalinaya markay noloshaa ugu wada kacdo miyaanad ka fikirayn intaa sidoo askarigaas nabadgelyada u ilaalinaya siduu shaqaynaya marka maciishada saa loogu kiciyo waa ay sicida uga mas-uulkahay maciishada waa madaxweynahana waxaan codsanaya ayuu uga mas-uula askariga nolosha
waxbaa codsana codsigaaga iska hay soo amar soo saar ilaa nolosha askarigaasaa daryeelkeedu dusha kaa saaran yahay shaqaalaha dawladdu dusha kaa saaran yahay bal iskaba dhaaf shicibo shaqaalaha dawladdu dusha kaa saaran yahay shidaalka wax ka qaba madaxweyne maaha waxaa la codsanayaa iyo waxaa lagama fadhiya wax ka qabo oo si dhabo wax uga qabo oo muuji inaad madaxweyne tahaydii oo shicib ahayn sidaad u hadlaysa sida shicibkee haddii kala dee nolosha way kici adna waa lagu kici doonaa ilaa nuur kama samaysteen inaad wax qabataa meesha lagu dhigay oo lagu doortay dad wixii qaban karayni adeer iskaga tag ما فرق يبناش فرق واحد معاه سبعين متر كان وسير يسوي شدالك قيمي سروك عيا وسير يسوي ما يقول الحكم بودي ما هو واحد معقول ده معقول ما هو فوضى من دولة إلى دولة بين إلى دولة هاي استهلك كل ما يقول هو بودي wax ka qabo waa codsanaya iyo waxa laga fadhiyo wax qalad ma yahay wax ka qabo oo aad tala keen arrinkeed wax ka qabanayso Cabdi Kariim Ciise Cabdullaahi Cabdi Kariim